waxaan jeclay maantana waatan idinku ballan qaadnay shacabka reer Somaliland iyo taageerayaasha asxaabta inaan kulba halka xaaladu marayso idila socodsiina waxa weeye maanta xaaladu waxay maraysaa ilaahay noo soo meel khatar ay maraysaa horaan idinku sheegay oon idhi muuse biixi wax khayr oo ka soo jeeda ma jiro 4 sano iyo barkaasna dalka wixii aan yabyabinay ummadda nation biliga sameynay maalinba boolba furfuriyay hadda wuxuu keenay inuu sharci samaysto sharci odhanaya annaga waan joogayaa asxaabtana waan baabiinaya meel ay ku taalo sharci ay ku taalo ururo toosa oo la furaya ma jirto waad aragtay intuu dadku kiciyey magacyada la baxay magacyadii magaranaysaay hobalada la baxay ay ururaanahay iyagoo sharci haysan kaambeen garaynaya haddaa ay u fiirsataan xaflad kasta oo nimankaasi iyo gabdhahaasi samaysanayaanba waxa gelbinaya waxa weeye ee soo dhaweynaya waa reer kulmiye asxaabu leeyahay inuu samaysto sharci aan jirin buu inuu isticmaalo wuxuu keenay inuu isku dayo inuu mucaaradka xabad la dhaco inuu musharaxii xisbiga wadani iyo staafkiisii inuu laba gaari mariyo wuxuu keenay inuu ciidamadii kala saaro ciidamada dadka maalinta dhowtay tooganayay ee dadka caayay ee afkii ku hadlayay maxamed saalaha fuul waa xun iyo xunka fuul oo kale ahayd waxa weeye waa rag ka soo jeeda jibadiisa weeye taasi waxay keentay inuu ku dhaco isdifaac taasi waxay keentay markaa inay halkaa yimaadaan dad hubaysan oo daafacaya asxaabta ayaa jooga raggaa uu leeyahay waa beelo oo way difaacaya waxa weeye muwaadiniin reer Somaliland baa weeye oo ficilku sameeyey ka xanaaqay baa weeye waxa weeye dhibaatada waxa keenay waxa weeye muuse haddaa Somaliland muuse maanta aynu gacan midaysan ku wada qaban weyno waxay ogaataan inuu saacadii isaga iyo maxamed kaahin waa ogtiin waa raggii dagaalkii 94 sameeyay saacadii 94 ayay ku celinayaan waxaan idinka maganahay oo raggii xalay toodhan ila soo hadliyay ee lahaa Faysal waa maalintaada ku gunto maanta aniga gacanta waxay ugu jiraan ma jiro labadan nin anigu waan ka quusanay ilaa maanta dadkii isxilqaamay ee salaadiinta ahaa ee culimadiinka lahaa ee mushar lahaa ilaa maanta albaabka ma furan waa gardiid horaan igu sheegay wuxuu haystaa Somaliland bakhaar uu lahayo ka maqnaa hadda waxaan sheegayaa dadka taageeraya ee ku taageeraya qabiil shakhsiyaadka ee ku taageeraya mansab aan macna lahayn wasiirka uu sameeyaa muuse ma wasiirba wax alla wax macna leeyahay ma jiro dawladdu waa ka baabiyay waa dawladda dysfunction kan shaqeyneen ee wax kasta isagu ilaa booliska ilaa station booliska ilaa jeelka Mandela isaga xukuma wax awoodo ka baxsan ma jirto hadda waxaan sheegnaa ka codsanayna dadka reer Somaliland maanta waa in cod midaysan aanu burburin labada korneel dalkeennaga burburin aynu cod midaysan samaysanaa doorashada Somaliland ee maanta madaxweynimada waa dawada qore lagu baxsan karay waa inaan taa codka saarnaa halkaa hadduu yahay ha yimaado ha tartamo laakiin waa inta baabiinaya ciidamaan samaysanaya waxa weeye dalku maad ka baabiinaysa beelaynu han isku nimi wax ku heshiiyey axdimaan samaysanay dastuurka laabtid yaa kaloo ilaalinaya marka waxaan dadka maanta ku sheegaya reer Somaliland waxaan ka codsanayaa war uu gardaran yahay maanta yaanu tacab khasaan ugu ridin 30 sano waxaan yabinay ku neeyo biyo la'aanta
aynu ku lahayn maciisho dhaqaaliga aynu ku lahayn caafimaad la'aanta tacliin la'aanta nabadan dugsinayaan taas ay ka dardaarana adduunka maanta oo ogta waxa ka taagan maciishad xuma ka taagan adduunka waxa laga baqayaa in macluul ka dhacdo qorshe dawladeed oo taa ku saabsan ma jirto qorshihiisu waxa weeye inuu kursigaa fadhiya nacam waa aad fadhiyeen ma fadhiis xaaraan ku fadhiimays waxaan xalaaleyn ugu dambeyn waxaan jeclahay taageerayaasha labada xusbi isbahaysiga inaan u sheego ha naga degdegina sida khamiistii hore waxaynu inagu sugaynaa dadka ina sharfay ee dalka u soo gurmaday waxay kala yimaadaan muusabix ayaan sugaynaa markaasaynu tala gaadhina insha allahu tacaala arrinteena aan gelinaa si ballaaran u gelinaa laga imanaya gobollo dhan aan ka dhigi doonaa insha allahu tacaala aan tusi doonaa inaanu muuse aanu tiqad haysin resign step down aan ku dhawaaqi doonaa insha allahu tacaala